wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka Jubbaland Cabdullaahi Dubbad Shiil ayaa maanta tababar u furay qaybtii labaad ee dhalinyaro loo tababarayo waaxda dabdamiska ee garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo. sidoo kale waxaa daahfurka tababarka goobjoog ka ahaa maareeyaha garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Aadan Maxamuud Jagadoon iyo xubno ka kala socday UN iyo UNSOS. qaar ka mid ah howlwadeennada tababarka loo furay ayaa ka mahad tababarka maanta loo furay ee sare loogu qaadayo xirfadooda aqooneed. bismillaah magacaygu waa Nasr Xaaji Xuseen Ibraahim waxaa ka mid ahay shaqaalaha garoonka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan International Airport Kismaayo. waxaa aad ugu faraxsanahay inaan ahay gabadhii ugu horeysay Soomaaliya oo makaanig ah. mar labaad waxaa fursad u helay inaan noqdo gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya dabdamisa. aad ugu faraxsanahay shaqadaas. waxaa fursadan i siiyay maamulka Jubbaland oo ugu horeeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo maareeyaha garoonka magaalada Kismaayo. magacaygu waa Cabdirasaaq Nuur Maxamed waxaan ka mid ahay shaqaalaha madaarka caalamiga Sayid Maxamed Cabdulle. maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mid ka ahay shaqaalaha loo igmaday qaybta dabdamiska. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ahay qofka hogaaminayo qaybta dabdamiska Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. runtii maanta waa farxad ayay inoo tahay. maareeyaha garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Aadan Maxamuud Jagadoon ayaa ka warbixiyay tababarkan iyo waxyaabaha howlwadeennada lagu bari doono. maanta waxaan daahfuraynay tababarkii dabdamiska qaybtiisii labaad. xafladan daahfurka waxaa nagala soo qayb galay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda Jubbaland mudane Cabdullaahi Dubbad Shiil. sidoo kale madax kala duwan oo ka kala socotay xafiiska UN-ka UNSOS iyo sidoo kale AMISOM. guud ahaan barnaamijka dabdamiska waa barnaamij aad muhiim inoogu ah gaar ahaan howlaha shaqo ee garoonka horumarka garoonka maartay qayb muhiim ka ah. qaybtii koowaad waxaan tababar aan u helnay 3 qof oo ka mid ah shaqaalaha bishii labaad ilaa bishii saddexaad ee sanadkan bilowgiisii. waxaynu ku soo qaateen tababarka labadiisii qaybood qaybtii practicalka iyo qaybtii tababarka ee theory-ga ahayd labadaba Muqdisho ay ku soo qaateen. tanna waa qaybtii labaad oo aan ugu talagalnay 3 kale oo cusub 3 qof oo shaqaalaha garoonka ka mid ah. marka waxay noqonayaan ilaa 6 qof oo shaqaale si gaar ah marka loo tababaray in ay qabtaan howlaha shaqo ee la xiriira dhanka dabdamiska wax kasta oo khatar ah oo adeega garoonka dhanka diyaaradaha rikaabka iyo guud ahaan hanaanka shaqo ee garoonka la xiriira ayaga ayaa maartay noqon doona dadka u diyaarsan dhanka dabdamiska ama ka hortagga wax kasta oo khatar ah ama emergency ah oo markaa la soo gudboonaado. marka muhiimad gaar ay inoo leedahay munaasabadan maanta aan ku daahfuraynay tababarka feeskiisa labaad ee dhanka dabdamiska ah. Abduqaadir Axmed Cali warbaahinta Jubbaland magaalada Kismaayo.